السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيرو كادي haddii aad soo iibsato qalab ama mashiinkaasna aad u jeceshahay laguna sheego in hal mar keliya aad haysato fursad oo hadduu kaa dhumo ama uu kaa baaba'o mar kale aadan dib u heli karin laakiin waxaa lagu dhahay mashiinkaas mar kasta waxaa fursad u haysataa maalintii inaad hal mar soo celiso oo aad u keento qofkii sameeyey markaasna uu kaaga dhigo sida ugu fiicnaa uu shaqayn lahaa waqtigii lagula ballamay mashiinkaas waa ku ilaalinaysa maadaama aad jeceshay isticmaalkiisa nafta bini'aadamka uu ilaahay ina siiyey oo sistamyo kala duwan iyo mashiino kala duwan ay ku jiraan oo aan la heli karin wax lagu bedeli karo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo subxaanahu isaga abuuray wuxuu noo sheegay oo uu na faray inay maslaxadda mashiinka nafteenna iyo jihaazyada jirkeena uu ka kooban yahay ay ku fiican tahay in mar kasta lagu xiriiriyo oo charger ama dab looga soo qaado khaaliqii abuuray oo ilaahay lagu xiro maalintiina 5 jeer ayaa lagu yiri waa lagu dayactirayaa oo ciladii soo gaaray ayaa waqti yaa lagu siinayaa ee soo celi ku soo xiriiri oo dabka ku soo xir fiilada ku soo xiriiri maxay kula tahay haddii sidaas aan u fahmno salaada oo aan u fahmno inay tahay wax anaga inoo fiican oo nafteena ay ku horumarayso ay ku hagaagayso ay ku toosayso ay ku nadiifoobayso oo qashinkii dhibaatadii iyo culayskii soo waajahay salaada kale inta u dhaxaysa iyo dambiyadii aan galnay lagu dhaqaayo markaas aad u fahamto sida mashiinkii farsamayaqaanka u celinaysa oo kale ayuu noqonayaa oo markaa salaadii waxay noqonaysaa wax aan u baahannahay oo jirkeenu u baahan yahay sidaas inaan u fahmno waxa xusid mudan rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri wabi ka soo qaad maalintii 5 jeer ku qabaysanaysid qofkii maalin kasta wabiga gurigiisa hortii mara 5 jeer uu ku qabaysto oo ku meerto waxa ka haraaya wax wasakh ah oo jirkiisa ku yaala qofkii 5 jeer qabaysto taas waxay u dhigantaa salaada marka haddaad rabto in wax ku toosaan salaada ku dadaal waqtigeeda ilaali shuruudaheeda ilaali haddaadan aqoonin baro yay ka noqonin maartay wax la iska sameeyo haddii kale waxaad ku dhacaysaa وعيدكي iyo maartay naartii uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhaartay dadku kada ayuu salaada ay waajib tahay ay haddana Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay waylun lil musallin marka culimada tafsiir halaag ayaa u sugnaaday ayaa lagu fasiray maartay dadka musalliinta laakiin halka lagu ma joojinin isla quraanka isaga fasirayo yaa waa dadka loo dhaaranayo oo naar loo dhaaranayo iyagoo waliba tukaday alladina hum an salatihim sahun dadka salaadooda iloobidaas waxay noqonaysaa sida loo tukanayo waxay noqonaysaa xilligeeda waxa ugu muhiimsan xilligeeda in la iloobo oo marka dambe sida caan baxday la dhaho naga bixiya sidii wax kugu taagan oo kale ilaahayna waafajiyo khayrka dhamaanteena assalamu alaykum wa rahmatullah